Israa'iil waxay mar kale qaratay guuldarrooyin dagaal iyada oo xabsiga dhigtay xubno isugu jira wasiirro, xildhibaano iyo duuliyayaal sare kuwaas oo looga shakiyay inay la shaqeeyaan Iiraan iyo ururada Islaamiga ah ee ka soo horjeeda gumaysiga Israa'iil. Dhinaca kale, waxaa jirta xog xasaasi ah oo dhowaan soo baxday oo sheegaysa in Israa'iil ay doonayso markan wixii ka dambeeyay in maxaabiista laga haysto la siiyo dhulka muslimiinta reer Falastiin ay ka baxayaan dagaalkana sidaas lagu joojiyo iyada oo warkaasi uu ku soo aadayo 24 saac kadib markii xogayaha Mareykanka uu yiri inay macaawin karno inta wixii ka dambeeyay awoodda Xuutiyiinta Xisbullah iyo Xamaas waa ay xoogeysatay dagaalka gobolkana weji kale ayuu yeeshay kolkii uu yiri xogayaha Mareykanka ay ku soo aadaysaa. Waxaan soo gudbinaynaa xog xasaasi ah, muuqaalka like saar sidoo kalena la wadaag asxaabtaada. aad ayaad u mahadsantahay. Israa'iil waxay xabsiga dhigtay xubno aad u badan oo isugu jira xildhibaano, wasiirro iyo duuliyaal diyaaradeed gaar ahaan kuwa ka tirsanaa militariga kuwaas oo looga shakiyay inay bixiyeen xog weerar laga fuliyay gudaha Israa'iil gaar ahaan magaalada Tel Aviv ee caasimadda iyagoo markaasi u ah. Waxaa xubnahan shaaciyay wargeyska Israa'iil ay leedahay iyo channelka Israa'iil ama telefishinka Israa'iil iyadoo wararkeeda baahiya. Waxay isugu jiraan golo wasiirro xubno ka tirsanaa oo 2 wasiir iyo wasiir ku-xigeen tiradoodu ay gaarayso sidoo kale xildhibaan ka tirsanaa xildhibaanada Israa'iil iyo waliba 3 duuliye oo kale kuwaas waxaa la tuhmayaa inay la shaqeynayaan dowladda Iiraan oo ay basaasiin u ahaayeen. asalkoodu waa Israa'iiliyiin waxay ka kala tirsanaayeen golayaasha kala duwan ee dowladda iyo sidoo kale ciidamada. raggan waxaa kale oo intaas lagu diray in loo xiray sabab la xiriira in la shaqeeyaan ururka Xisbullah ee Lubnaan ka dhisan Israa'iilna ka fuliyo howlgallo qaraar. warka sheegaya in raggan la xiray kolkii hore wakaalada caalamiga ayaa daabacayay laakiin markii Israa'iil qudheeda ay ka hadashay ayaa xaqiiqadiisa banaanka timi waxayna muujinaysaa dhabarjab weyn iyo guuldarro dagaal. Israa'iil ayaa toddobaadyo la soo dhaafay weerar isdaba jooga la kulmaysay waxayna weerarada ururada Islaamiyiinta ah ee jihaadiyiinta ay gaareen heer ay weeraraan guriga ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu taa oo ilaa iyo hadda weerarkaasi markii uu dhacay aan ra'iisul wasaaraha la arag isaga iyo xaaskiisaba. warbaahinta kama soo muuqan kadib weerarkii toddobaadkan Xisbullah diyaarad ay leedahay oo aan duuliye lahayn qarax ay ugu dhex samaysay gurigiisa isla markaana gidaarka ama daaqadda xigtay guriga ra'iisul wasaaraha oo fadhigu yiilay uu ka dhacay waxaana la arkayay geedaha halkaas ku yaala oo dhulka ku daatay burbur guriga soo gaaray iyo sidoo kale sayriga digniinta bixiyo oo shaqayn waaye ama meelo kale ka dhawaaqay iyo raadeeradii oo gabi ahaanba fariistay. intaas oo idil markii la isku daro iyo warkan sheegaya in la xiray saraakiisha duuliyayaasha golaha wasiirada iyo xildhibaanada waxay muujinaysaa dhabarjab weyn iyo guuldarro dagaal. dhinaca kale waxaa jirta daawadayaal in Israa'iil maanta uu ka soo baxay war kale oo ah in la soo daayo 200 oo maxbuus oo isugu jira saraakiil iyo askar Israa'iiliyiin oo ku xiran Gaza. haddii taasi ay dhacdo xaaladda gobolka waa isbedeli doontaa sida markaasi Israa'iil qudheeda ay sheegatay. waxa ay ku xireen shuruud ah in iyaguna maxaabiistaasi loo soo daayo dagaalka Gazana ay joojin doonaan laakiin ururka Xamaas iyo muslimiinta reer Falastiin ayaa iyagu markaasi tuhun xoog leh qaba Israa'iil bacdama ay Israa'iil tahay oo aysan lahayn wax ixsaana waxa laga baqayaa inay sii wado hagardaamada haddii maxaabiistoodu ay helaanna duqeymaha ay isdaba joog ka dhigaan. hadda waxaa jira goobo ka caagan duqeymaha oo lagu hayo maxaabiista taa oo ay inta badan iyagu duqeymo ka geysan bacdama dad iyagu ku dhiiga oo yahuudiyiin halkaasi ay ku jiraan. Israa'iil si kastaba ha ahaatee warka sheegaya in dagaalka ay joojinayso haddii maxaabiista loo soo daayo wuxuu ku soo aadayaa markii shalay halkaasi uu gaaray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken isagoo oo sida 2 fariimood oo waaweyn. marka koowaad ninkan horta waxa uu halkaasi tagay muddo ka badan 11 jeer tan iyo markii uu dagaalka bilaabmay waxaana taasi ay muujinaysaa October to October 12 bilood gudahood in 11 jeer uu safar ku tago Antonio Blinken awoodda dhaqaale military iyo sidoo kale garab istaaga xoog leh ee markaasi Mareykanka uu u yahay Yahuuda taa oo muslimiinta iyaguna isku duubni laga rabay ay sagabeen. dhinaca kale fariimaha uu siday Antonio Blinken waxa ka mid ahaa in dagaalka sidii loo maleynayay uusan noqon awoodda ururada Islaamiyiinta ay baahday Mareykanka intaan wixii ka dambeeyana uusan caawin karin Israa'iil. Soomaalida ayaa tiraahda labadii xaq darro ku heshiisa xaq ayaa isku dara. waxay kolkii horeba ku heshiiyeen xasuuqa dadka muslimiinta ah laakiin Mareykanka markan wuxuu leeyahay awoodda Xuutiyiinta Yemen ururka Xisbullah iyo Xamaas iyo kuwa kale oo Ciraaq u dheeda ka dagaalama in ay tahay kuwa aan loo babacdhigi karin isla markaana Mareykanka ay ku adag tahay inta wixii ka dambeeya inuu dagaalka ku sii jiro.
cabsi laxaad leh ayaa soo food saartay quudaha Maraykanka, UK iyo kuwo kale oo reer galbeed ah oo iyagu si indho la'aan ah kolkii hore Israel u taageerayay. ilaa ay hadda ururada muslimiinta ah garabka ay haystaan waa dowladaha Turkiga, Ruushka iyo Iiraan. hase ahaatee hadda Iiraan waxaa la leeyahay sirdoon la shaqaynayay oo Israa'iiliyiin ah ayaa lagu qabtay magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israel. si kastaba ha ahaatee dagaalkan waa uu xoogeystay sanad iyo wax dheer ayuu socdaa. waxaa la dilay Israa'iiliyiin badan halka dadka muslimiinta walaalaheena ilaa ay hadda laga dilay tiro ka badan 44,000 oo qof oo muslimiin ah, waxaana sidoo kale la dhaawacay wax ka badan 100,000, waxaana barakacay malaayiin kale. dalalka islaamku ay ugu horeeyaan khaliijka sida Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Bahrain iyo dalal kale oo dhowr ah ayaa iyaga laga leeyahay walaalihiin dhan u raaca oo dareenkeena muujiya sida gaaladuba isku taageerayaan isku taageera. Israel dhan walba ay iska taageeraysa hadday noqoto bartan hadda aan ku kulansannahay ee Facebook ama YouTube. Yahuud ayaa iska leh, dabcan ma ogolo inaad qorto ereyada qaar sida Xisbullah. haddii aad qorto Israel oo kale ama Yahuudda aad qorto oo kale waxay samaynayaan in ciwaankaagu ay xiraan ama ganax ay ku saaraan, taa oo muujinaysa in Yahuudda dhinac walba iska taageerayso hadday noqoto meediyaha, dagaalka afka ah, kan gacanta ah, midka dhaqaalaha iyo nooc walba. muslimiintana laga leeyahay adinkuna sidaas oo kale isku taageera bacdama ay yihiin hal xubin sida suubanaheena uu cadeeyay. haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro like saar, rukuma bartayda. inta badan waxaad ka heli doontaa wararka bariga dhexe iyo kuwa Soomaalida ah. sidoo kale followna soo dheh, YouTube keenana subscribe saar. aad iyo aad u mahadsantahay daawada.